soo booqdo saxafiga tifatirihii telefishinka bulsho ee tacadiga loo geystay halkan ay ka maqlayseen dhaawacyo halis qaba oo u baahan dhakhtar dabadeed waxa ay andaraa Somaliland saddex waxbay ku caanbaxday ay magaca ku heshay mid wuxuu ahaa hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waa ka warhayseeno gowracay ugu jiiday xukuumaddani iyo xisbigeedii midna waxa saxaafadda xorta waxa lagu qiimeyn jiray Somaliland waddanka ugu xorriyad qowl badan geeska Afrika tiina waa arkaysaan maanta waxa dhacaya markii ugu horeysay maaha waxaana rikoorku sheegayaa in xukuumadda kulmiye tahay tii ugu tacadiga badnayd saxaafadda xorta midna waxa xuquuqul insaanka in la ilaaliyo waa arkaysaan oo tani waa xuquuqul insaan lagu tuntay muwaadiniintu xaq bay leeyihiin qofku hadduu dembi galo dariiq loo maru leeyahay waaran buu leeyahay laakiin isagoo suuqa jooga in la garaaco ama guriga loogu dhaco waxay ka soo horjeedaa dhammaan qawaaniinta Somaliland waxa loo baahan yahay inaanay taasi niyad jabin waddanku wuxuu u baahan yahay iyo duniduba warar runa oo xaqiiqa garaac kastaana ummadda dareenkeeda iyo rabitaankeeda ma joojin karo adduunka oo dhan wuu soo maray saxaafad la garaaco dad la caburiyo kumay guuleysan intaasoo dictator baa dunida soo martay Somaliland uma baahna inay qaado dariiqa dictatoriyadda waxaana ilaahay nabargardarro uga dhigo dhaawaca gaadhay waxa kaloo ka warqabtaan Cabdimaaligna in la garaacay markii burca laga soo qabanayay saxafiyiinta la socotay tafatirahana waa la garaacay marka kuwaas waa tacaddi iyo xadgudub laakiin waxaan idinku boorinayaa intaan iyo aday ka qaadaan mooyaane inay